وبرنامج حسالة دقن كيه ده يقول بقراءة الصومالية عنك أحمد فارح علي دجا وبرنامج دقن كيه ده لانتا الصومالية VOA loo bixiye sababaha dagaalada aadanaha ka dhaxdhaca ka dambeeya marnaba kama foga kala jiidasho iyo wax jidinka la mariyo oo la isku quuri laayahay la isagana hari laayahay dabeecadda aadanaha ayaa sidaas ah oo colaadaha lagama waantoobo tan iyo aamanu ayaa la isleynayay oo fardaha la isu fuushanaa ha yeeshee waayo aragnimadu sidayna bartay intay rabtaba ha socotee ugu dambaysta colaad kasta waa laga nabdaa saa muddo dheer looma dhabar adeegi kare waa dhab oo maalmaha hore geeridu tiraday rabta ha gaadhee dirir waliba gadaalka wada xaajood bay ku dhammaataa wixii magadood galay markay idlaadaan ee raggii kibirku hoday ay meelbaas ku dambeeyaan bay wixii nooli isu soo hor fadhiistaan sidii la isu daba qaban lahaa ee colaadii lagu ba'ayee lagu hoogay looga heshiin lahaa si lamid ah sida kuwa kale ee guuska dunida ku dhaqan qardafooyinka bulshadii hore ee soomaalida dhex mari jiray way ka garami jirtay markaas baa waxaa u samaysmay hanaan nabadda loo maro haddii la isqabto amaba si uun la isku afgaran waayo hanaan loo irkado dhinacyada ishayaa markay dhexdooda ka heshiin waayaan waxaa u samaysmay waxa aynu xeerka u naqaan ee intaan gumaystayaashu dalka imaan ay ku wada dhaqmi jirtay kuna kala bixi jirtay gartuse reerar bay kala lahayd mar laba tol bay u dhaxayn jirtay mar kale laba jirib asii isku tol ah ayay ahayd mar saddexaadna waxay ku ekayd laba nin oo wax kala sheeganaya waana heerkan midka aan diiradda saari doono inta aan ku jiro dib u milicsiga dastoorkii hore ee soomaalida siday u badnayd waxaa la isku haysto inta aan cid saddexaad loo bandhigin dhinacyada ay arrintu ka dhaxayso ayaa wadahadal ka yeelan jiray wadahadal mararka qaarkood dhib badan wadahadal lagu kala caroodo wadahadal la isku mari waayo oo la isugu garaabi waayo halkan ayuuna garanka iyo gartoorka soomaalidu ka bilowdaa yaa haddaba garta naqi jiray looma sinayne waxaa gacanta loo gelin jiray gargayr wax aqoon loogu xishay waayo aragnimo ay dheer yihiin darteedna inta kale looga soo soroco xeerbeegti ayaa la oran jiray waxayna ahaayeen dhinacyada ishayaa rag ay ku kalsoon yihiin geed lagu ballamay guntiisa intay salka dhigaan ayaa loogu iman jiray markaas bay labada dhinac ee dacwiyaaya marba mid dhagaysan jireen waa laba dhinac oo mid waliba uu xusulduubayo inuu isagu garta yeesho cidda ka soo horjeedaana ay harga maran goobta kala carowdo runtii xeerbeegtidu siday u badnaayeen waxba ma ay qori jirin xoghayn wax u qortaana hareeraha kama fadhiyi jirin sidaasoo ay ahaydna nuxurka dacwiga labada dhinac wax yarina kama sheegi jirin labada nin ee loo garnaqayaa haddii midkood uu afgarooc yahay oo dacwigiisa aanu si wanaagsan u sheegin karin wuxuu oran jiray anigu hebel hebel baan igmaday nin uu ku kalsoon yahay intuu odayada farta ugu fiiqo dabadeedna kaas uu magac dhabay baa u doodi jiray haddii kolka mudda calayhiga oo ah midka wax loo sheeganayaa uu waxa loo sheeganayo qirto gartu waa fududaan jirtay halkaas bayna ku dhammaan jirtay haddiise uu inkiro muddaciga oo ah kii wax sheeganayay ayay markhaati weydiin jireen markaas uu soo taagi jiray nin u fura wixii uu ku dacwiyey markaas oo kale dastoorka soomaalidu wuxuu mudda calayhiga u ogolaa
in markhaatiga midka wax ku sheeganaya uu duro xeerbeegtidana uu ku yidhaahdo darta meetan taal hebel markhaati kama noqon karo maxaa yeelay ninka dacwada iyo haysta iyo isagu meel bay qaraabo ka yihiin ama wuxuu oran jiray aniga iyo isagaaba eed leh waana la wada og yahay ama wuxuu oran jiray af wax cunay xishooyo waxbuu qaatay iyo wixii la mid ah duristaas haddii ay xeerbeegtidu garawsato markhaatigeeda duray garta waa ka saari jireen dabadeedna muddaa caleyhiga ayaa loo sheegi jiray inuu dhaar ku maro waxa loo haysto inaanu qabin taasna hadduu ishubo wuu yeeli jirayoo kitaab gacanta loo saaray ayuu xagaf ka siin jiray inkastoo guud ahaan soomaalidii hore aanay dhaarta ku degdegi jirin oo guuldarro ka soo gaadha ay ka filan jirtay dhaaxay odayadu dhallinyarada kula taliyeen run iyo been midna laguma dhaarto labada dhinac ay isu dhagaysanayaan odayada xeerbeegtiga ahi waxay ku dadaali jireen inaysan kala iloobin qodobada milgada leh ee mudan in wax laga soo qaado amaba noqon kara daliil go-aankooda dambe ay u cuskadaan waxba kama ay soo qaadi jirin hadallada baanaha daaran iyo dabuubta aftahamada keliya looga gol leeyahay ee labada dhinac ay mararka qaarkood hoosta isaga dusinayaan geedka garta inta la joogo waxaa reebanaa cayda iyo aflagaadada ciddii ku kacdaana ganac bay odayada ka mudan jirtay haddiiba aan looga badin waatay ku mahmaaheen afxumo ragna waa kugu dirtaa colaadna wax kaagama tarto gabayadiisa kuwa ugu caansan midkood waa mawdkuka adeekan loo yaqaane sayid maxamed cabdilla xasan waatuu ku soo daray tuduc uu kaga hadlaayo anshaxa wanaagsan ee loo baahan yahay dadka loo garnaqayaa inay ku tilmaanaadaan waa tuducii uu ku oran jiray haddii hadal la moogtamo xil waa laga mastuurtaaye muddaca iyo muddaa caleyhi waa marin gobaadeene madaxda iyo baanaha mawdku ka adeegi dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale oo ku saabsan soomaalidii hore iyo garta iyo garanka